Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal ku soo dhawaada warka warbaahinta Hatuf Media oo mar walba xilligan oo kale taad ka daawataan qodobada ugu doorkaroon ee daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya Jubbaland oo la wareegtay ciidamadii ku sugnaa gobolka Gedo gaar ahaan degmada Beled Xaawo Cabdirashiid Janan oo ah sargaalkii ugu sareeyay ciidamadaasi haystay oo heshiis rasmi ah la gaaray Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe saraakiil iyo askar ka tirsan kuwa xoog dalka Soomaaliyeed oo tababar ugu maqnaa dalka Turkiga ayaa dalka dib ugu soo laabtay doorashada Soomaaliya wali waxa jaangooya beesha caalamka kadib heshiiska mustaqbalka Soomaaliya iyo nidaamka doorasho ay qaadanayso ay go'aan ka gaari waayeen mucaaradka iyo sidoo kale Villa Soomaaliya ayaa ugu dambeyn laga sugayaa beesha caalamka in ay go'aan ka gaarto maadaama ay heshiin waayeen Soomaalida dhexdeeda daawadayaal intaasi waa qodobada ugu doorkaroon ee aad ku daawan doontaan warkayaga markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal dawladda federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn gacanteeda ka baxday degmada Beled Xaawo istiraatiijiyad gooni ah u lahayd isla markaasina dagaalo dhimasho iyo dhaawac sababay ay kula gashay maamulka Jubbaland hogaamiyihii ugu sareeyay ciidamada halkaasi ku sugnaa Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan ayaa heshiis rasmi ah la gaaray maamulka Jubbaland ciidamadii dawladda federaalka Soomaaliya ka amar qaadanayay ee ku sugnaa magaalada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa wararku waxay tibaaxayaan in guud ahaanba ay u wareegeen dhanka maamulka Jubbaland dawladda federaalka ayaa labadii sano ee la soo dhaafay kula jirtay maamulka Jubbaland dagaal xoogan oo dhimasho iyo dhaawac sababsaday isla markaasina ka dhacay Doorow ilaa iyo sidoo kale Garbaharey ilaa iyo Beled Xaawo oo dagaalo waaweyn ay ka dhaceen Cabdirashiid oo si weyn ay dawladda federaalka Soomaaliya uga taageereysay dhanka saadka iyo mushaaraadka ciidamada halkaasi ku sugnaa ayaa waqti xaadirkan wararku waxay tibaaxayaan in guud ahaanba ciidamadii Beled Xaawo ku sugnaa ee ka amar qaadanayay dawladda federaalka Soomaaliya uu feel guud ugu sheegay in maanta laga bilaabo ay yihiin ciidamo ka tirsan daraawiishta Jubbaland isla markaasina ay iska ilaawaan wax la yiraahdo dawladda federaalka Soomaaliya wararkani ayaa si guud u soo baxaya iyadoo horaantii isbuucanna ay si guud u soo shaabaxday in Cabdirashiid Xasan Cabdinuur uu shirar qarsoodi ah kula lahaa magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe haddaba arrimahan isu soo taraya ayaa ku soo aadaya xilli dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamadeeda ku sugnaa dhanka iyo Puntland ay jab xoogani kula kulantay isla markaasina in ka badan 150 askari oo maxaabiisna halkaasi lagu qabtay ciidamada dawladda waxay ka dhigan tahay waqti xaadirkan daawada in Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Cabdirashiid Janan oo waqti xaadirkan dhankan iyo Jubbaland uu wareego isla markaasina gabi ahaanba ka tanaasulo xilkii uu ka hayay dawladda federaalka Soomaaliya taliyihii guud ee NISA ee dhanka Jubbaland iyo waqti xaadirkan maxay ka dhigan tahay in dhammaan ciidamada iyo saadkii dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugnaa degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ay waqti xaadirkan si guudba ay Jubbaland ugu wareegayaan ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababar ugu maqnaa dalka Turkiga ayaa dalka dib ugu soo laabtay soo dhawaada dalkiina hooyo wadan la ka sugayay ciidankiisa tihiin idinku faraxsan idin jecel ku soo dhawaada aad baan ugu faraxsanahay saakayta ku soo dhaweeyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay baa mahad iskale idiguna ku soo dhawaada dalkiini waa la idin sugayaa safarka hore dagaalka ku biri doonta haddii alla idmo waxaan idin geyn doonaa taliskiini shaqooyin badan baa noo yaala marka waa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay soo dhawaada ragga tiimkii kale tan waa imaan doonaa wiigan uu socon doona daabuladoodii marka ilaahay baa mahad iskale warkeenu ma badna waa yar yahay shaqooyin badan baa noo yaala aad iyo aad u mahadsantihiin soo dhawaada dhowr iyo 10 sano oo ay go'aan ka gaari waayeen masiirka dalkooda ayay beesha caalamka go'aan ka gaaraysaa doorashada Soomaaliya laga hirgelinayo dhowr iyo 10 sano kadib siyaasadda Soomaaliya wali waxa jaangooya beesha caalamka xilli doorashada dalka laga hirgelinayo ay ku heshiin waayeen mucaaradka oo saddex heer u kala jabay iyo sidoo kale Villa Soomaaliya beesha caalamka ayaa waqti xaadirkan aan ku soo tabinayo laga sugayaa nidaamka doorasho ee Soomaaliya ay qaadanayso halkan ayaan kugu wadaagayaa iyo daawade haddii ay tahay markaa kugu horeysan waxaan ku leenahay nagu soo biir oo Flow Grey warbaahinta Hatuf Media isla markaasina faafi oo Session Grey
وما سنتها ولي سياسة الصومالية وحاجة نقول بيش عالم كا أيضا سياسيين الصومالية يكون شين وين نظام كدور الشدة إدلك اللي جه رجلينيو فيلا الصومالية أو دنك أورران معارض كو جبيه هم بكبي جدا وحيابها أي فيلا الصومالية وضو سلمر كاسين أو أركشات ومدحوين حسن الشيخ محمود طلانيو ayaa ku soo aadaysa in dhexdhexaadintii beesha caalamka ee saddexda heerba la kulantay ay soo jeediyaan doorasho laga qabanayo dalka isla markaasina ay ku dhawaaqi doonaan saacadaha nagu soo aadan iyo sidoo kale maalmaha nagu soo aadan xilligii ay noqotaba waqti xaadirkani mucaaradka ayaa ku qanacsan doorashada ay keenayaan beesha caalamka isla markaasina villa Soomaaliya ayadana kama biyo diidi karto haddii ay ka biyo diidana dhexda ayaa la iskugu imaan doonaa maxay ka dhigan tahay in beesha caalamka ugu dambeyn khilaafadii siyaasadeed ee ka dhaxaysay mucaaradka ay iyadu go'aan ka soo gaarto maadaama ay heshiin waayeen raggii Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ahaa ee la doonayay in dalkan mustaqbalkiisa ay ka fikiraan ama ay jaangooyaan madasha mustaqbalka ayaa u arka nabad iyo nolol kuwa ka aragti duwan oo haddii ay ku soo biiraan ay arqaladeyn karaan ajendiyaasha siyaasadeed ee ay leeyihiin isla markaasina nabad iyo nolol ayadana waxay si gaar ah u diidan tahay waxyaabaha qaarkood oo ay golaha mustaqbalka ay sida tooska u soo bandhigeen nabad iyo nolol iyo villa Soomaaliya sidoo kale waxay iska shabahaan waxyaabaha in xisbiyada la isku doorto in doorashooyinka qof iyo cod laga dhigo waxyaabo badan in kuraasta la qabiileynin waxyaabo badan ay isku waafaqsan yihiin halka mucaaradka golaha mustaqbalka iyo sidoo kale dowladda federaalka iyo sidoo kale nabad iyo nolol ay isku soo dhawaasho iska daaya waxa ay kala wataan ay kaaf iyo kala dheera ay yihiin daawade maxay ka dhigan tahay in doorashadii iyo siyaasadda Soomaaliya ay wali loo daba fadhiyo safaaradaha shisheeye ee wali fadhiya xalane isla markaasina jaangooya xaaladda ugu dambeysay ee dalka iyadoo waqti xaadirkani culeys siyaasadeed oo dhanka amniga ah ay dowladda federaalka iyo guud ahaanba dalka ay soo food saartay ciidamada nabad ilaalinta caalamiga ee UNSOMna dhamaadka sanadkan bisha December la filayo in muddo-xileedkooda joogitaanka uu ku ekaado daawade haddii ay taa markaa kugu horeysay waxaan ku leenahay nagu soo biir si aad u hesho warar iyo warbixino xaqiiqa ah mahadsanid daawadayaal waa naga intaa guud ahaan warkii aan idinkaga tabinayay Hatuf Media anigoo Cabdullaahi Gaban ayaan idinla socodsiinayay intaan mar dambe ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo